أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل توكلت على الله وكفى بالله وكيلا walaalay waan salaam xarijeyneen caafimaad qabtaan meel walba aad joogta walaalay waa kana jawaabtii waatan ha walaalay jawaabtii waatan waxyaalo qaarkood aan kusoo qoraa jirta oo completely qalada oo kacbaan ugu suubiyay markasta walaalay marka insha Allah bal aan aragno jawaabta hadda leer walaalay ya saan idin sheegay level 1 and 2 labaatan question insha Allah walaalay haddii la yiraahdo so this is the question insha Allah aan idin warsado walaalay su'aashan idin weydii waa tan qofka magaciisa inuu inta ka doorto haddii la yiraahdo jawaabtu waa maxay waa tan magaca macnaheedu waa maxay what is your name waxaan filayaa idinkoo dhan saxdeen halkan waa maxay waxaan ku dhashay Kenya I am from Kenya ya walaalay insha Allah alright tan kalena qaybta labaad aan aragno isaga waa 10 jir so isaga waa 10 jir waa maxay he is 10 years old asaga waa 10 jir walaalay waa ka intan waa iyada waa tan means waa maxay she's here iyada waa tan markasta walaalay iyada waa tan she's here ya walaalay insha Allah marka kan shanaad waxa waa intee aadaysaa xagee aadaysaa intee u socotaa inta Soomaali isku mid mayaan where are you going intee aadaysaa where are you going number 6 waxaan rabaa in aan iyada la hadlo markasta walaalahay marka muxuu noqonayaa I want to talk to her that's what jawaabti walaalahay ya number 7 choose the right answer dooro jawaabta saxda ah so how old is Abdi waa imise jir so maxaan dhihi karaa he is 20 years old or maxaan dhihi karaa Abdi is 20 years old inta waan dhihi karaa she is waa khalad I am waa khalad inta waa khalad tan baa saxda insha Allah walaalay aan kan waa maxay number 8 are you a student adigu arday miyaa tahay marka are you adaa lagu hadlay maxaad ugu jawaabaysaa inaad aniga tiraahdo waa ma dhahays yes he is waa qalad yes I am that's the correct one yes am I na waxa waa completely no waa khalad weeyaan khalad marka yes I am ha waanahay taas weeyaa walaalahay insha Allah do you have a job adaan kula hadlaya ya do you markaan ku dhahay I ku hadashaa halkan waa maxay no do I completely wrong no she doesn't completely wrong marka jawaabtu waxay no I don't mujid hataa do either is damarsan is waa khalad weeyaan markasta walaalay so oo kacbaan u qaaday markasta so no I don't do you have a job no I don't ya walaalay number 10 does your father live with you aabaha miyuu kula nool yahay aabaha ya yes he do ma dhihi kartid because third person baan ka hadlaynaa yes do he this is complete waxa weeye waxaan ugu talagalay oo qalad insha Allah walaalahay iska ogaada ya waxaan ma jiro ya insha Allah daawan marka si waa yes he does so maadaama uu third person yahay does your father asaga laga hadlay your father waa third person waa yes he does ha wuna la nool yahay ya walaalahay okay what was his job shaqadiisa isaga maxay what was his job sometimes inaad fiiriso clue waxaad ka helaysaa su'aashaad ka helaysaa bal fiiri his and was mujeda so halkan maxaad arkaysaa his job she kama hadlayo makaste so she da dhan meesha ka baxaysaa so maxaa kale his was job baa laga hadlay job waa maxay waa teacher ya his job was waxay ahayd a teacher this waa past wax tagay was ay ahayd so his job was a teacher shaqadiisa waxay ahayd macalin teacher macalin ya walaalay halkan number 12 how does she go to school iyada siday iskoolku aadaa ya walaalay marka halkan fadaa fiirisid maxaan dhane she go marna maqaanis because waa she waa third person ma fahan third person maxay qaataa goes ya she goes to school by bus ya she goes to school in bus nama dhihi karna sababta bus waxaan u isticmaalnaa iyo transportation we use by she goes to school by bus ya bus ayay iskoolka ku aadaa ya walaalahay sorry waa idinku bobsiinooya okay walaalahay can choose the right answer so maha so here waxaad haystaa at on in
So what do we use? In the winter, in the summer, in the fall. Yeah, walaalahay. So in the winter, we like to go skiing. Skiing waa ma barafka lagu taraaraxayo. Skiing baan aadna winter time. Wadamada qabowga ayaa waa game. Recreation weeyaan. Markaas recreation dadka basketball waxyaalaha ciyaarayo kamid yahay markasta walaalahay. Yeah. Waxa waa in the winter. Yeah, walaalahay. Number 14. I eat breakfast 8 a.m. since a time uu yahay maxaan isticmaalna at 8 o'clock, at noon, at midnight, all of them maxaan isticmaalna at. So how do I eat breakfast at 8 a.m. every morning? Yeah, walaalahay. That's the correct answer, walaalahay. Number 15. Did you sleep well? marka halkan daa fiiris waxaad fiirinaysaa bal fiiri su-aasha meesha u dhacis did aa lagu weydiiyey did ya wax tagay baa lagu weydiiyey so waa inaan wax tagiishay wax tagay ayaa lagu weydiiyey ma fahanti so did you sleep marka sleep ka hadlayna maxaan ka cabirnaa habeenkii baan ka cabirnaa so halkan maxaad haystaa last night yesterday this morning so did you sleep well last night ya walaalay si fiican muu seexatay xalay last night xalay si fiican muu seexatay ya walaalay now kan waxbaa ka maqan she like coffee black so marka she waxaan ognaa in uu third person yahay ya walaalahay marka maxaan isticmaalayna does she like coffee black yeah does she like coffee black ya walaalahay so third person do ma isticmaalko didna maaha bastim laga hadlaya markasta walaalahay yeah okay do you have markaan akhrinayo think inaan soo sheegaan umalay do you have a card inaan dhahan umalaynaya gadaal markaan dhegeysan waxaan arkay do you have a card inaan so anyway a card maadaama uu yahay magac uu yahay maxaan u isticmaalnaa laakiin maxaan u isticmaalayn gaari ay loog tahay male haddaan gaariga hore uga soo hadli lahaay aan ku dhihi lahaa gaariga buluuga ah ama gaariga shalay hadda baan isticmaal maadaama aad iloog tahay baan isticmaal hadda gaariga ilama ogid so sidaa aawadeed baan isticmaalay waa gaari aad ogid do you have a car gaari ma leedahay ma fahminayso gaari dhan warka ma hayo wuxuu yahay gaari ma leedahay unbaa ku dhahay ma kasta walaale marka maxaan isticmaalnaa aan car waa noun magac weeya waxaan isticmaalaya th ma isticmaalis aadna maba meesha maba soo geli karto insha allah marka halkan daa fiiriso 3 cars waxaad arkaysaa 3 gaariyood marka waa inaad fiirisaa jamac waa inaad eegtaa jamac waa inaad tahay so jamac maxaad haystaa there is you don't see jamac ma haysid there was jamac ma haysid the only jamac ku jiro waa maxay there are marka ani markaa indhaa miida qayaano kuma darin this is so kale waa mujid so obvious easy to know markasta walaalay there are 3 cars in my garage 3 baabuurood ayaa garaashkayga ku jira yaa walaalay waa sidaa yaa halkan my father mujada a delicious meal for us on Saturdays that means sabti walbo imaada so waa wax mar walba dhaca so maxaanu leenahay cooks with a s he's a third person maxaan isticmaalaynaa cooks ma dhihi karno cooks sababtoo isaga ma aha you I we they hadduu ahaan lahaa halkan est waan ka saaran laakiin maadaamuu qof saddexaad yahay third person uu yahay macno he she it maxay qaadataa s baa lagu daraa yaa walaalay so that's why waxa waaye eska lagu daray halkan yaa walaalaysa so cooks bay qaadanaysaa my father cooks a delicious meal aabahan wuxuu noo kariyaa delicious meal macaan macnaa raashin cuntamayo macaan for us annaga on Saturdays sabti walbo oo soo gala aabahay raashin fiican ayuu noo kariyaa yaa walaalahay okay halkan maxaad haystaa do you work marka su'aal baan ka rabaa yeah so maxaa waaye das do waan haystaa meesha ma geli karto what same thing maxaan gelina where do you work yeah halkan waxaan ka rabaa where do you work xagee baad ka shaqaysaa yeah haddaan dhihi lahay what muxuu noqon what do you do why not what do you work we don't say that we say what do you do ma fahantaa rabnaa qof shaqadiisna what do you work ma noqonaysa where ayuu noqonaya xagee yaa walaali ayuu noqonaya kan kale what haddaad tiraahdo no sax makaa noqonaya what do you do laakiin good sax weyn laakiin haddaan shaqo warsayno qofka maxaan dhahan what do you do laa ma dhihi karno what do you work is not correct
doesn't make معناها صح ما مركا هذا الكاد أديس حتى صح ما مركا ولا إن شاء الله مركا and the first and congratulations هذا كو باستي that means و 15 وحي كبدن عاد كنتي that means you are not level 1 يا ولا إن شاء الله now let's see level 2 إن شاء الله intermediate level أنا أركن okay ولا intermediate سؤال شو هو سؤال محي choose the correct answer so جوابت الصح ده ضلبه وحال يقول restaurant do you want to go restaurant do you want to go so في go بالغ حظية ميل بالغ حظية so محاجة ما نستعمالنا restaurant do you want to go so which restaurant do you want to go where restaurant do you want to go kind of a weird way so حنقول which restaurant restaurant مجدة which restaurant ما دي كرنا where restaurant do you want to go where no it's not even right saying so which restaurant do you want to go restaurant ayaad rabtaa inaad aad ya halkan maxaa lahdaa waxaan haystaa do did and does baan haysanaa waxaa haystaa where you have dinner last night and this in this case waxaad fiirinaysa last night waxaa kuu muuqda in meeshan uu ku jiro wax tagay past uu tagay yaa last night laga hadlayo so halkan maxaan leenahay did where did you have dinner last night xageebaad xalay ka cashaysa where waxaad sheegaysaa meeshaad ka cashaysa ayaad sheegaysa where did you have dinner last night meeshaad ka cashaysa xalay waa intee okay walaale halkan waxaan haysanaa have did and do baan haysanaa you finished your homework so halkan waxaa aragtaa past wax soo dhamaada baad arag markasta wax soo dhamaada maadaama uu yahay did ma gelinaysa laba past misdaba dhigaysa markasta so muxuu noqonayaa have doona meesha ma galay markasta walaalahay so wuxuu noqonaya have you finished your homework ma dhehaysid did you haddaad did gelis waxa waaye edidaa ka tuuraysaa wuxuu noqon did you finish kan waad ka saaraysaa markasta wuxuu noqonaya did you finish your homework so no ed laakiin haddaan half isticmaalan ed waan keep garaynaynaa so wuxuu noqonaya have you finished your homework miyaad dhamaysay your homework haddaad rabta inaad edda halkan ka turto wuxuu noqonaya did you finish without the ed your homework that's sax waay laakiin halkan jawaabta waxaan kaa rabay have you have yaa walaalahay halkan maxaan ku siiyey she is damina she is something to Somalia so muxuu noqonayaa she is go no never no makaste so labaan ku siiyey kaanaba inaa xoogaa yara fahantay so muxuu noqonayaa she's never been to Somalia ida Somalia marnaba ma ayna tagin she's never been to Somalia marnaba ma ay tagin yaa walaala insha allah okay walaalay number 5 I like this shirt right shaatigan waan jeclahay yaa marka waxaan warsanayaa you have a black color midabka oo black ma haystaa so muxuu noqonayaa do you have do buu noqonayaa maadaama aan do you aan ka hadlo maxaan ku dhahay you we they I maxay qaadataa waxay qaadataa just to do ma qaadata es kum das marna ma ka dhigays ya so he she it baa das qaad maadaama you muxuu noqonayaa do you have a black color shaatigan waan jecel waqtigaa laga taagan la hadlaya present moment I like the shirt shaatigan waan jecelahay do you have a black color ma haysaa color madow ma haysaa yaa walaalay waa do marka ya number 6 somebody stole qof baa wuxuu xaday mujada qofka muxuu xaday yesterday muxuu xaday sister car ma noqon karo ya the sister's car ma noqon karo ma taqaanid marka wuxuu noqonayaa my sister's car so somebody stole my sister's car yesterday so someone stole my sister's car this walaashay gaarigeed ya my sister's car ya ayaa shalay qof xaday ya walaali waa saa okay walaalay qaybtan waa maxay you like to go out with me ya marka muxuu noqonayaa would you so waxaad dhahaysaa polite ma jeclaan lahayd in aad date ila aado in aan banaanka islaan aan soo sheekaysanaya this is one marka sheekada ama shukaansiga bilaabana qofka waxaa leedahay would you like to go out with me maanaa in aad date ila qaadatid banaanka soo sheekaystaan dadka soo bartaan kaxwo la isla soo cabo ama filin la aado just something u baxtaa baarka meel lagu fadhiisto markaste oo la wada hadlaya saas waay would you like ma jeclaan lahayd in aad go out with me inaad banaanka ila aado oo
معناها asked waxa laga hadlayaa shukaansi baa laga hadlayaa walaalayaal qof hadduu ku dhaho you like to go out with me ha u malaynin inuu yahay no only way oo saas ah qofku laad waa laba qof orto inay relationship ama shukaansi ama soo dhawaansho ka dhexe inay wada hadlaan yeah not your best friend iyo saa kulama hadla ma lagula hadlay inkaste okay so what do we use would you like so this is the correct one number 8 Zahra looks much than yesterday halkan hadaa fiiris you have happy happier and happy so here this adjective you have done erigdan wuxuu ku sheegayaa eriga happier meesha galaya number 8 Zahra looks much happier than yesterday Zahra waxay u erag tahay inay ka faraxsan tahay shalay faraxeeda saamahayn laakiin macnaha maanta way ka faraxsan tahay she looks much happier than yesterday shalay markaan arkay may faraxsane so that means haddadan maarta way ka faraxsan tahay yeah Zahra looks much happier than yesterday yeah walaali so erga happier isticmaalena because this is adjective comparative adjective weeyaan so erga dan ayaa ku sheegay in aad happier meesha gelis yaa walaala insha Allah halkan where is the remote control waa kan TV-gi lagu daarta maarta waxbaan watch TV so maxaa raba I want to yeah I want to watch TV but what do you say I wanna watch TV I wanna watch TV want to muxuu isku noqoyaa I wanna watch TV I wanna watch TV I want to watch but usually dadka I want to maaragta you very rare maxaad maqlaysa I wanna watch TV so want to maxay isu kaa noqonaysaa I wanna watch TV yaa walaale insha Allah laakiin markaa qoraysa I wanna ma qoraysa I want to baad qoraysa yaa walaale bar akhriska I wanna waa caadi waa ku hadli kartaa wax problem kuma I wanna waad ku hadli kartaa okay weeyaan taasaytii waa normal number 10 call me when you home so call me when you like still when you qofka ma u gaarin sama isoo wac markaad guriga gaartid muxuu noqonayaa get call me when you get home call me isoo wac when you get home got ma dhigar got this all past none of them ma galayo so ereyga get ayuu galaya hadii kale wuxuu noqon wax taga buu noqonayaa yaa walaale khalad weeyaan get buu noqonayaa call me when you get home yaa walaale insha Allah number 11 can you mujada the light it's too bright marka halka waxaan ku leeyahay muxuu noqonayaa marka haddaa fiirisid can you waxbaan kaa codsanaya the light something about the nalkaan kaa codsanaya it's too bright haddaan kun wax nalka aad u iftiinaya that means nalka wuu dhibaya maxaa waaye turn off iga dami nalka ya turn on waa maxay waa daar turn out na maba aha ma jiro kole turn out no turn off yes turn off iga dami turn off baa sax yaa walaalahay my car was out of gas gaarigay gaaskii ka dhama so maxaan suubiyey we to schoolka waan u lugaynay gaarigay gaas ma laheeno sidaa daawadeed waan lugaynay schoolka lug baan ku tagnay walaalahay that is the correct one fact argad we walked to school that means wax la tagay waa wax tagay schoolka waan u socon waa wax soo dhamaaday walaalahay ma kasta insha Allah okay number 13 tomorrow mujada tomorrow I get up early it's my day off so maalin walba hadaa kacaysa tomorrow berit hadday tahay aad macnaha oo it's macnaha it's a day off maalin aad shaqaynin ay tahay so maxaad u kacaysaa waa no it's already giving you a clue tomorrow so tomorrow I don't have to get up early tomorrow uma baahan inaan ka kaco sababta maxay tahay it is my day off waa maalintii fasaxayga that means tomorrow fasaxayga waa mashaqaynayo waan jiifanaya kasta waa saasoo kale dadka sometimes sabti axad dadka maalmaha kala shaqaynaya maalintaas 1 hour 2 hour hurdada waa lagu darsadaa si qalbiga maskaxdaadna siina dheeraad uga gasho maalmahaas kasta walaalay so here don't have to maadaama ay yahay don't have to yaa walaalay halkan when I get home markaan guriga gaaro I am going to have a guriga markaan tago I'm going to have
bathna waa marka biyaha waaskada ka buuxsta ma artaa aad dhex gashid nasiinada that's bath marka muxuu noqonayaa relaxing bath. When I get home I'm going to have a relaxing bath. Marka aynu arag number 15. Okay, he's driving test because he ran a red light. Qofkani ma aragtaa muxuu noqonayaa pass. No, he's driving test, something is going on. qof hadda oo nalka gudbo mala baasaya? No, ma baasaysid, waa dhacaysaa definitely. misna meesha wax ka jira ma passna ma geli karo. So su'aasha is obvious, easy inaa fahantid. Failed. He failed his driving test because he ran wuxuu gudbay a red light. nalkii guduudka ayuu ka gudbay. yaa walaalay wax ka xun mala markaas oo kale adoo driving lesson baranaysa oo imtixaanka maraya red light gudubta ka waran miyaa ku siinay lesson damba. Anyway, okay, number 16. His salary after he got promotion waxa waaye meesha aad joogta laga dalacsiiyey. So markii lagu dalacsiiyey salary-gaaga lacagta lagu siinayo muxuu noqonayaa? ma hoos buu dhacayaa mise kor buu aadayaa? ma kasta walaalay. So waa maxay? Increased. His salary increased. kor buu u kacay. kor u kacay that means waa wax kor u kacay that means salary-gii wax markaas wax hadda dhac wax mar hore dhacay baa laga hadlay. His salary increased. salary kor buu u kacay. After kadib he got promotion markii la dalacsiiyey salaries kor u kacay. yaa walaalay. Number 17. What time is it? What time is it walaalay? So jawaabta waa maxay? haddaad halkan fiiris waxaad siisaa 8 baad arkaysaa. 8kii gacanta gaaban waa saacadaan ku cabirnaa, gacanta dheerna waxaan ku cabirnaa minutka. So 8 waa la arkay marka halkan lagu cabiraa halkan imiska gudbay wuxuu ka gudbay 5 10. So that means 8 wuxuu ka gudbay 10. So that's what I mean. So it is 10. waxa lagu yidhi 10 ayuu ka gudbay 8. 10 ayuu ka gudbay 8. So what is it? What time is it? waa imisa saac. So halkan haddaa fiiris 8kii waa kan ahaa gacanta dheer halkan ma aha way kasii gudubtay 5 10 ay gudub. So muxuu noqonayaa? wuxuu noqonayaa 10 past 8. So it is 10 past 8. waxaa kaloo dhihi kartaa 8:10. 8:10 waa dhihi kartaa. yaa walaalay 8:10 is easier inaan dhahdo it is 10 past 8. For me anig 8:10 inaan dhaha ka jeclay. It's 8 past 10 ta 8:10 ayaga fudud. ma kasta walaalay. Okay, here, what time is it? What time is it? halkan 8kii bay dirita ugu taagantahay. So that means it is 8 o'clock. It is 8 o'clock. waa 8 o'clock walaalahay. yeah? So walaalahay marka waxay noo dhiman 2 more insha Allah oo number intermediate. Where were you yesterday? shalay xagee baad jirtay? Where were you yesterday? So where baan ku leeyahay marka you telling me meeshaad aaday shalay. So waxaad tiri I went. yeah, where waad wax baasti wax tagay waay. So waxaad tiri I went to see my friend. waxaan aaday my friendigayga ayaan aaday. yaa walaalahay ma gastay? I went to see. I want to go ma dhihi kartid oo wax hadda ma wax tagay waay. I did went and men islamaba geli karaanba because did waa baasti went waa but it's completely wrong walaalay. haasnina waa qalad. anaa kas iyo kibir u yeelo walaalay. ula kac baan u yeelo. did went and men islama geli karaan? No, they're both past tense. No, ma kasta walaalay. So yeah, marka waxa weeyaan anaa u yeela si aad u fahantaan walaalay. yeah? I went to see my friend. waxaan aaday inaan saaxiibaday soo booqdo insha Allah. Number 20. I saw him just. yeah? goorme? day. So muxuu noqonayaa? The other day. I saw him just the other day. yeah? ma noqonayo another day. ma noqonayo other day. ma noqon kusta walaalay. The other day. That's how we say the other day. yeah walaalay the other day. yeah? that's on the way aan u isticmaalnay the other day. yaa walaalay insha Allah. marka walaalay 20kan waxaad ku dhamaysatay intermediate insha Allah walaalay. aan galno advance insha Allah walaalay. C1 C2 jawaabteeda insha Allah aan aragno haddii alla yiraahdo walaalay. Okay walaalay. This sorry walaalay haddaan boobsiiyo. I'm so sorry walaalay. yeah? raalli ahaado. Number 1. The two sisters do look. labada walaalo waa maxay? They way isu egyihiin. Do look alike.
way isku egyihiin walaale. Do look alike. That's how we say alike. Do look alike. Yeah walaale. So this is waxa kale do look alike. Ma fahanta walaale ayaa kale. Two sister do look alike. Inkasta walaale insha Allah. Dislike-na waxa waaye dis necab yihiin. So necab meesha ma yaala insha Allah. Number 2, it is about time you to that. It's about time. Means qofkani in badan la dhahay waxaan iska daa. Then now would you? It's about time. waqtigii waa la gaaray amal kasta. That's the way they speak. Like hadaa fiir Somalis, the way loo macnayna is kind of a little bit weird oo noqon kasta walaale. So it's about time you to stop that. Wallahi waa la gaaray waqtigii inaad joojiso. Marka inta ka soo qad qafaa sigaar cabo. In 10 sano dhahay jooji sigaar. Now qofkii sigaarka woo joog. It's about time you stop that. Yes, macnaa waqtigii waa jooji. waa wax si fiican qofka encouragement lagu siiyo loola haday. It's about time. Kasoo qaad laba qof saaxiib ahaayeen muddo badan ba isma ay guursan. Now waa aroos. It's about time. That means yes, waqtiga waa la gaaro kala markasta walaal. That means waa soo raagtay oo kale ayay kaanab u dhigmaysaa walaalay. It's about time you stop that. macnaha that behavior. It's about time aad iska joojiso markasta walaalay. So stopped ayaa galaysa insha Allah. Okay, I have to something before she comes. Yeah? So that I have to leave waa inaan baxaa before she comes. Inta iyada ay imaanin maarta waa inaan iga baxaa. I have to leave before she comes. Aniga waan macnaha waa inaan baxaa inta iyada ay imaanin kasta. I have to leave before she comes. Yeah. Number 3, I have to. Yeah, marka saddexdan midkooda galaya before inta iyada imaan. So aniga waxbaan suubinaya inta iyadu ay imaanin. Marka inta iyada before she comes. Ma jirta. So maxaa noqonaya? I have to leave. Ma dhihi karo I have to stay. Waa inaan jooga. Leftna waaba khalado maba geli karta meesha. We're talking about present. waqti la jooga laga hadlaya. So muxuu noqonaya? I have to leave inaan baxo before she comes. iyada inta imaan inaan baxo. Yaa walaalahay. marka halkan waa maxay waxaan ta was, were and been. So now look you have a have, driving, yeah, perfectida ayaa la galay marka walaalahay. markuu fiirsada I have waxaan haystaa driving all day. Now I am tired. waxbaan qabanaya maanta oo dhan like hadda waan daarana. So what does that mean? I have been driving. Yeah walaalahay, I've been driving all day now. I have been driving all day. marka maanta oo dhan waan waday. gaari baan waday. And now hadda I'm tired. waan daalanahay. maantana gaari baan waday. haddana waa daalay. So this have-tan waa maxay? waa present perfect. We're talking about here present perfect. Just walaalahay. I have been. Number 4, I have driving all day. Now I am tired. So I have maxaan ahaa? I have been waxaan ahay. Have been right. It's perfect baan ka hadlaynaa walaalahay. I have this have waa maxay? waa present. This been waa perfect. I have been waxaan ahay driving mid wadayo. Yeah, at that time. Number 5, right? By the time I reached, then everyone had left. By the time I reached, waqti aan gaaray ba qof walba u tagay. So it's the party. By the time I reached the party, markaan party-gii aan tagay, everyone had left. Yeah? By the time I reached the party, everyone had left. Yeah, walaalahay. That's the correct one. To the party maaha. In the party inta maaha khalad waa. Yeah, walaalahay shawaada. By the time I reached the party, this is I reached and gaaray. Fine. The party baa galaysa insha Allah. Everyone had left. qof walba u baxay markaas uu tagay. Number 6, she doesn't like the boss. bosskeeda ma jecla. She doesn't like the bosskeeda ma jecla. So halkan haddaa fiirisay neither does she. Yeah? Neither does she ma dhihi karo sababtoo ah halkan I baad u jeedaa. So I baad marka waxaan inta ku jira I-da ayaa iskale qofkan wayba noo sheegtay iyada booska inay ka heli. So marka anigaa iska hadlaya I weyaan. markan I wixii aan dhihi lahaa ayaa la rabaa mogtahay. marka ma noqonaysaa neither does she? No. Neither don't ma noqonayso khalad weyaan. marka muxuu noqon neither do I.
neither do I yeah halkan waxaan gasay neither do I aniga sidaas oo kale she doesn't like the bosskeeda means qofka marka iyada xukumayo ma jecla neither do I aniga ma jecli neither do I anigaba ma jecli kastoo kama heli number 7 it wasn't her fault qaladkeeda ma ahayn she was just iyada waxay ahayd wajada the wrong place the wrong time so we're talking about time iyo place so time maxaan isticmaalaa at beesha maxaan isticmaalnaa in walaale she was so marka walaalahay number 7 it wasn't her fault qaladkeeda ma ay ahayn she was iyada waxay ahayd marka the wrong place maxaan isticmaalnaa in the wrong place yeah at the wrong time it wasn't her fault she was just iyada maxay ahayd inay markaa ku dhex jirtay the wrong place meel qalad ah aan waqtigan u ahaa at the wrong time waqtigan u qalad yahay so jawaabtu waa inaan aad it wasn't her fault she was just in the wrong place at the wrong time ya walaala insha allah number 8 she was feeling tired yeah she was feeling tired so she went home way daalanayd so gurigay aad mujada ereyga tuuna ma galayo aadna ma galayo inta yeah she was feeling tired so she went home marka qaarkood marka ereyga fahmeen ereyga qaado geliyo akhri out loud adigu ismaqal markaste adigu ismaqal kor u qayl ismaqal waxaad dhegtaada dhegeyso markaas waxaad dareemaysaa wax qaldan waa dareemi kartaa ya walaala insha allah number 9 it's embarrassing to your own telephone number qof baa ku weydiiyay telefonkaaga muxuu yahay awal dad telefoon waxay sukay laakiin hadda telefoonka cid ma xasuusato sababta qof walba meesha buu ka fiirinayaa markasta inta dadka telefoonkood qaarkood dad badan aan garanayno markasta sababta wax walba lagu fududeeyay xataa ayaamahan waxa dhacayso xataa maaragtay ingiriiska marka type garaynayso inaad ka fikirto uma baahan maxay raadaan isha google-ka asaaba ku saxaya markasta so daamis dadka waxbarashada way daciifaysaa qoraalku wuu daciifaya sababta wixii haddii aan isku taxallujinaynin maaragta waad iloobaysaa markasta walaalay marka annaga dadka Soomaaliya annagoo yaryarka imaad mar hore ka tagay ama waxa waaye waxyaalo badan aan ka sayo marka aan micnaynay afkayga ma soo qabanayo waa iga maqayn muddo maadaama aan isticmaal maskaxdu ka yar tirtirmaya marka ii sheegtay macallin waa kaas oh yes waan xasuusanaya marka walaalay raali haydina qofkaan maxay u looday no walaalay inta markaa timaadaan meesha aan joogna aad timaado ayay qof walba garanaya mogta markay ma ogid xaaladda halka lagu jira markasta walaashay so always walaashay mar walba gabdhaan la hadlaya mogta walaashay anoo dhahay arkaya marka walaalay ma aragteen waa saa qofkii wax walba aadan mar walba aad isticmaalin maskaxdaada waxay leedahay waxaan qofka muhiim u ah way ka tirtiraysaa wadi loobaysaa marka waa saas oo kale walaalaya hanala yaabin markan ereyada qaarkood oo tir Soomaali talo muxuu ahaa ereygan muxuu ahaa ya dhowr jeer isweydiya talo ereygan muxuu ahaa Soomaali waxa lagu dhigi jiray maskaxdu ka tirtir max walaalay marka hal ii sabro hal raali walaalaya marka waxaan ku waday wax walba waa la fududeeyay hadda markasta marka type garaynaysid xataa WhatsApp marka qoraysid already ereygu waa lagu sii saxayaa marka you think inaad baranaysid maxaa iraahdaa sida loo qoray wariga ma baranaysid sababta waa lagu fududeeyay wixii oo dhan markasta walaalay saa ogaad marka waxaad kaligiin ku gaartiin ma dadka dhan wax ka dhaxeeyo oo ka dhaxayn doono hadda ay dadka generation dhashaan ka sii dari doono noqonaya markii wixii waa loo fududeeyay soo ma baha inay ka fikiraan wixii yaa walaalay saa ogaad marka halkan soo talaadaan ku dhaada telefoonka waa maxay xariga a lot of people inay ka saynin markasta ma garanayaan markasta marka inaad ka fiirisid waa numberka meeshaad ka eegaysaa saaxiibada numberkeeda korka ma taqaan waxaad ka fiirnaa walaasha numberkeeda korka ma taqaan waa inaad meesha hooyada numberkeeda ma taqaan meesha ka fiirsaa markasta walaa sababtu waana loo fududeeyay markasta waana loo fududeeyay soo maskaxdu waxa la dii lagu fududeeyay maxaa isugu wareerinay waxa lagu fududeynaa maskaxdu in looga baahan waxa lagu fududeeyay so anyway it's going to be normal way walaalay hadiya marka halkani it's embarrassing to what to forget your own telephone number sababtoo embarrassing qof hadduu ku weydiiyo oo numberkayga ma garanaya aad tirahdid kaana waxaad dareemaysaa oo macnaha waa dhibsanaysaa ma fahamtay embarrassing waa dhibsanaysaa wax kasta waxaad fiirinaysaa oo ceeb baad dareemaysaa waxaan fiicnayn baad dareemaysaa markasta walaalay so taasoo kale waa haddaad telefoonkaad ilowdo laakiin maalmahan wax iska normal oo qof yaqaana ma laha telefoonka is normal way it's not a big deal right now markasta walaalay
Number 10, it is important parent, right? Parent waxaa muhiima waalidka in to love their children. waalidka waxaa muhiima in ay caruurtooda jeclaadaan. ilmahaaga inaad lacag siiso iyo inaad jecel tusto noloshooda beri waxaa dhisay ilmaha inaad jecel tusto. That's waxa noloshooda dhisay beri. moralkooda haddaad dhisto ilmihii waabad geysay meesha aad rabtay ilmaha number 1 moralka haddaad ka dishay just gurigii aad dhisi lahayd baad dishay. baaba baad ka dhigtay cunugaasi nolol fiican very little af ka fakada. marka waalidka aanu ilmihiis aad aan ugu ficnayn ma aragtaa. ilmaha qaarkood ba isdilaan, ilmaha qaarkood waxay kusoo baxaan balwaday galaan, ilmaha qaarkood gurigay ka cararaan, ilmaha qaarkood xanaaqa dagaal ba ka hor imanaya. marka walaalahay aan u fiirsano waxa ugu wanaagsan aad ilmahaada siiso waa inaad la sheekaysataa. waa in maxaa iraadaa ii sheeg anigu ku dhahay canaanaha haddii qalad garan waad canaanan kartaa. canaanadii Soomaali maaya oo waalneed maaya raalli ahaadaya. ani waxaan dhaha mataqaan qofka waalidka markuu rabo inuu canaanto ul u soo qaato usha horta adiga isku dhifo, isku gacan meeshaad cunugka ka dhifo horta adigu dhash isku sii. bal fiiri xanuunkaa zaa'idka cunuga waad ka khafiifinaysaa. maalinka dugsigaad arkaysaa cunug ul buu qaado. cunugii Soomaali markaan imaaday 2020gii dariishadeeda waxaa ku aadsanay dugsiga ku aadanaa hoos. markaasaan arkaya dugsiga macalin wuxuu wataa fiilo koronto wata. markaasuu intuu gacanta kala qaad alla gacanaha kaa goybaya waash cunugii mascaman u laalaamay. alla naxariis darnaa laa ilaaha illa xawla walaa quwwata illaa billah. wallaahi mar baan damcay inaan tago wallaahi bilaan ku qayli waa laga celiyay. hooyaday ka qabatay tiri maya dadkeena ayuu ku habaari war hadduu habaarka xaguu jira qofa xaq ugu leen mabu habaar kuma geeyabe wadis habaar. marka waxa waa jaahilnimaa nugu jirto wallaahi waa in aan please waxaan rabaa maanta inaad iga barato ya qofku xumaati wax waa dhici laakiin wax walbo kugu dhaco ka baro in adiga qofka walaalkaad ka ilaalisid. ya wax markuu kugu dhaco ka baro qofka walaalka inaad ka ilaaliso. sorry walaalka subjectiga waan ka baxay laakiin mararka qaarkood wax muhiim ah inaad just qal afku inuu soo tuuro markaste. marka walaalahay raka raali ahaada markaste. marka haddaad hal wax iga baro wax markuu kugu soo dhaco waxaa kugu soo dhacay inaad ka ilaalis qof kaloo bini aadan inaad ka ilaalis. please isku day oo adigana aad ka fiicnaatid dhibaatadii kusoo martay. yaa walaalahay taas baa iga dardaaran daa walaalahay insha allah. okay so now it's important parent waalidka to love inay jeclaan their children. ilmahaad inaad jeclaato waxa weeyaan waa wax aad muhiima. waa waajib ilmahaad yaa ku dhaha adduunyada keen yaa ku warsaday yaa adduunyada keen ku warsaday ilmaha markaa dhibaataynaysid qof keen kumaad aadaa doolmatamo iyo gaara xaqooda waa inaad siisaa oo jeclaata ilmaha. okay sheekadaas waan ka baxay walaalay raalli ahaada. okay number 11, Abdi and Zahra have finally went to get what? so Abdi iyo Zahra in badan bay saaxiibo ahaayeen. so now finally ugu dambeyntii maxay they decided waxay go-aan ku gaareen went to get married waqtigii is aroosnay. Abdi and Zahra have finally decided when to get married. macnaha go-aan way gaareen waqtigii is aroosi lahayd. that means 2 bilood soo socotaas aroosaynaa waxa way waas aroosaynaa 2 bilood soo socoto which means go-aankii waaba la dejiyay already makaste oo maaha dhaqan wax laga dhaqanayo maaha. so decided go-aankii way gaareen waqtigii is aroos waa muxuu noqonayaa Abdi and Zahra have finally decided when to get married. yeah when to get married waa ya walaalahay insha allah is the correct one. number 12, all airlines diyaaradahoo dhan what did they do? all airline that means jamac waay. so maxaan isticmaalayaa don't not do completely qalad waay is the way u qoran doesn't okay waay laakiin waxa waaye qalad waayo halkan ma geli karto because jamac baanu ka hadlayna. so maxaa galaya don't. all airline don't permit smoking. diyaaradahoo dhan ma ogola in sigaar lagu cabo diyaarad. yaa walaalahay insha allah ma ogola. number 13, the baby began baby wuxuu bilaabay after the doctor tickled his feet. marka babyga macnaha wuxuu bilaabay inuu breathing. baby wuxuu bilaabay inuu neefsado breathing.
kadib marka dhakhtarka tickle means uu ka duqduqleeyay feet lugaha marka lugtiisa his feet baby lugtiisa markuu dhakhtarka duqduqleeyay maaragta cunug wuxuu bilaabay inuu neefsado markasta sometimes ilma markii laga soo bixiyo caloosha maaragta ma caloosha markii la dhalo maaragta qaarkood ma neefsadaan so maybe it could be that way inay yahay laga yaabo the baby wuxuu bilaabay inuu neefsado kadib markii dhakhtarkii lugtii uu ka tigalgelay soor walaalkay codkay marka arku gaaban yahay. So the baby began breathing after the doctor tickled his feet. Baby wuxuu bilaabay inuu neefsado kadib markii uu dhakhtarka lugtiisii uu tuqtuqleeyaa walaala insha allah. Number 14. Abdi said wuxuu yidhi I 5 minutes late because I have to get my car. So Abdi waxaan soo dahayo 5 minutes late sababtoo ah gaarigayga ayaan soo qaadanaya. So this Abdi wuxuu soo banaya Abdi will be. Abdi wuxuu ahaan doonaa ya wuxuu ahaan doonaa. Abdi said I will be waxaan ahaan doonaa 5 minutes late 5 daqiiqo inaan soo daha because I have sababta maxay tahay I have to get my car gaarigayga waan soo qaada I have to get my car gaarigayga waan soo qaadanaya yaa walaalahay insha allah wadna ma galayo bina ma galayo yaa walaalahay so taalido soo sheegay erayga markaa ingiriis kor u akhri kor markaa u akhri waxaad dareemaysaa in uu dhawaaqi uun caadi ku ahayn yaa walaalahay. Number 15 she said her backpack here so waxbay qofkaani maxaa iraada ka tagtay she said waxay tiri she leave ma geli karo was leftna ma geli karo waa qalad so waxay ka tagtay so she says she left yeah she left her backpack here boorsadeed ayay inta uga tagtay she left her backpack here yaa walaalay insha allah so this is past tense yeah okay walaalay maadaama uu said uu yahay past waxaan rabnaa wax tagay inaan soo gelin yaa walaal wax tagay she left waxay ka tagtay her backpack here boorsadeed halkan uga tagtay yeah. Number 16 she said waxay tiri another past she iyada a week ago sitimaan ka hor kahada so waxa waaye she said waxay tiri she kana ma soo galayo kana sax maaha so waa maxay she had done waxbay dhamaysay week ago maadaama week ago uu dhamaado wuxuu noqonaya wax soo dhamaaday so had done she said she had done waxbaana waxaas ma qabatay she said she had done waxaasi already dhamaysay a week ago sitimaan ka hor ayay ka farxalatoo dhamaysay walaalayaa. Number 17 dunta baa iga xirantay number 17 Abdi can write English but he can't speak it yeah so Abdi can yeah English but he can't speak it so we know that Abdi waxbuu qaban karaa uu awoodaa can but halkanna ma ku hadli karo so muxuu noqonayaa ma noqonayo understanding ma noqonayo wuxuu noqonayaa understanding ma noqonayo understand ayuu noqonayaa so Abdi can understand Abdi waa mid fahmi karo ingiriiska but laakiin he can't speak it kuma hadli karo yaa walaalay pastiga ma galayo kanna ma galayo understand can understand. Number 18 Abdi her look for an apartment tomorrow so maxaa galayo kan ma galayo maadaama tomorrow aan ka hadlayno we need will yeah Abdi will help her Abdi wuu caawin doonaa iyada muxuu ku caawinayaa look for an apartment beritin apartment uu la raadiyo beri apartment in uu la raadiyo Abdi ayaduu la raadinayaa so halkan tomorrow aan ka hadlaynaa we have will help yeah so Abdi will help her look for an apartment tomorrow Abdi wuxuu u raadin doonaa ayada apartment inuu raadiyo bertaya ayuu Abdi caawin doonaa si apartment u raadiyaa Abdi will help her look for an apartment tomorrow inshallah. Number 19 Zahra is able to understand English Zahra
way awoodaa inay Englishka fahanto but laakiin she not meeshan waa jadiid ma ku jiro to speak daamin she ku hadli karto so waan fiiriyay halkan was able mujada yeah isn't able so halkan waxaad aragtaa inay is ku jirto so we continue using is so waxaan ka hadlaynaa waqti la joogaya walaalay marka not waxaan halkan ugu dhigay si aad u fahanto in aan sentence oo diidmada ku jiro aan u baahanay so waa kana isn't able so is not able ya walaalay is doonka kan oo dhan ha ku wada dhigina maadaama diidmo ku jirto waa is not able so halkan waxaa is not able ya walaalay insha Allah so halkan waxaan galaya is not able to speak it ma awoodo inay ku hadasho Zahra is able to understand English Zahra way awood in English ka fahanto laakiin kuma hadli karto waa ya walaalay numberka 2aad can you please something me where I can get a taxi mii sheegi kartaa meesha aan taxi ka helo so muxuu noqonayaa mii sheegi kartaa waqtiga la joogaa laga hadlay so waa muxuu noqonayaa tell told ma noqon karo is tell ma noqon karo waa khalad marka can you please tell me where I can get a taxi mii sheegi kartaa where aan taxi ka heli karo walaalahay I think I finished waan ku xabeebay marka walaalahay insha Allah waxaan rajeynaya I hope inaan codkan idinku dheeraynin maxaa yiraahdaa ii sheeg ama aad ku gaasantay marka aad qof wax codku ka xirmaya ama kasta walaalahay marka raali ahaada hadii codkaygu uu stable ahayno marna uu gaabnaa marna kor u socdo walaalahay raali ahaada insha Allah marka I hope walaalahay inaad ka fahantaa next step walaalahay waxaan yeeli doonaa waxaan rabaa community tabka inaan waxaan oo dhan ay idin soo geliyo community tabka so qof walba maarta uu taabta marka taasi wixii dadka gadaalka iman doona maarta I think wuxuu noqon doonaa faa'iido inay taabtaan idinkana way idin fududaan doona xataa community tab markaan geliyo waa ka jawaabaysaa dhac siinaysaa waad fiirinaysaa markasta walaalahay insha Allah marka soo waxaan rabaa waxaan arko meesha loo bataan rabaa inaan arko markasta walaalahay insha Allah marka walaalahay I hope inaad fahanteen waa in salaamaya aad waa in soo dhaway walaalahay insha Allah if you are not subscribed please subscribe inshallah and please come to my TikTok please come TikTok inshallah TikTok rajada aan kale waxay tahay in aan live idinku soo qabtaan live walaalay haddii meel kale live la soo qaban karana ii sheeg inshallah anigu waa iga fiicantii inshallah khayr baa idin rajay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.